gudoomiyaha gobolka Banaadir Thabit Cabdi Maxamed waxa uu sheegay in golaha amnigu kulamo badan ay yeesheen kuwaas oo looga hadlayo xasilinta caasimadda. duqa Muqdisho waxa uu tilmaamay in golaha sare ee amniga looga hadlay ka hortagga wax kasta oo dhibaato abuuri kara, isagoo uu gudoomiyuhu yiri waxaan qabanay qaraxyo badan oo la doonayay in dadka lagu dhibaateeyo. hay'adaha amniga oo kaalin weyn ka qaatay in aan si nabada oo nolol leh aan ku noolaan. shalay ay ahayd iyo doraad markii laba gaari oo qarax ka saaran yahay labadaba lagu guuleystay in midna inta la qabto dadkii saarnaana gacanta lagu dhigo. markii ugu horeysay aan arkay laba qof saarneedna la qabtay, baabuurkiina la qabtay, kadibna baabuurkii mar dambe uu qarxay. shalayna waxay ahayd in baabuurkii la qabtay isagoo la raba in oo admiina baarista ay kor taagan tahay, la raba in la furmo ay laba askari ku dhintay, ilaahay naxariis janna ka waraabiso. ayagana si gaar ayaa ugu mahadnaqaya hay'adaha amniga. waxaan rabaa inaan kaga faa'iideysto fursaddan. sida aad la socotaan gobolka Banaadir wuxuu annagoo raacayna shuruucda iyo awaamirta madaxda ee nafartay waxaan aasaasnay golaha amniga ee gobolka Banaadir. golahaas amniga ma ahan kaliya inuu ka kooban yahay hay'adaha amniga kala duwan, laakiin wuxuu ka kooban yahay hay'adaha garsoorka iyo maxkamadaha ayuu ka kooban yahay. sidoo kale maamulka gobolka ayaa ku jiro. waajibaadka ugu horeeya ee saaran waxa ay tahay anigu amniga waxaan ka aaminsanahay shakhsiyan amnigu waa kalsoonida shacabka. haddii shacabka kalsoonidooda la dhiso oo ay hooyadu ama aabbuhu dareemaan qofka jooga degmada inuu ayaga u adeegayo, amniga maalintaas u yimaada. marka golahaas amniga la dhisay waxaan idinka codsanaynaa maadaama dadkii maanta Muqdisho runtii matalaya ay wada joogaan in si dhow loola shaqeeyo. annaguna waxaan mas'uuliyad qaadaynaa ilaahay idinkiis wax alla wixii tacadiya ama xadgudub ee dad ku dhici lahaa in annaga ka maamul ahaan aan ku dhex jirno oo aan xaqiijin aan dadka tacadi lagu sameeyo. gudoomiyaha gobolka ayaa sheegay in si loo kordhiyo dhaqaalaha waddanka ay ka shaqayn doonaan in caasimaddu ay hesho maalgelin. waxaan annaga sidoo kale hiigsi dhow noo ah in magaalada Muqdisho iyo gobolkan Banaadir uu helo maalgashi ku filan oo ay qof walba kuwa jooga ee gudaha jooga inay si wanaagsan haddii ay shirkado ku lahaayeen iyo haddii ay hadda rabaan inay abuuraan inaan wada shaqayn wanaagsan la muujino. laakiin shuruudeenu way sahlan tahay. markasta meel kasta aan sheegano waa ku celceliyaa. qof kastoo imaanaya dalka maalgashanayo gaar ahaan magaalada Muqdisho ama kuwa joogo shaqo abuur samaynayo, annagu shuruudeena way sahlan tahay. shuruudeena waxa ay tahay haddii aad 100 qof shaqaale siinaysid oo aad shaqaalaysiinaysid 100 qofood waa inaad 17 degmo magaalada gobolka Banaadir si siman ugu qaybisaa. waa shuruud aan biyo dhac lahayn. sababtu waxay tahay degmo walba oo meeshan ku taala gobolka Banaadir xaq uu lahaa wuxuu ka helaa kambanigaas ama shirkadaas. duqa caasimadda ayaa qaba in maamuladii ka horeeyay wax aysan ku guuleysan uu la imaan doono, taa oo ah in Muqdisho matalaadeedii siyaasadeed uu keeni doono. madaxda dhamaantoodna ay wada sheegeen anigu shakhsiyan waxa iga go'an anigoo idin la tashanayo tusaale qaadanayo in xuquuqdii gobolka Banaadir uu lahaa aan geed dheer iyo geed gaaban u kor insha Allah ta'ala. in Muqdisho maamul goboleed ay noqoto aawadeed waxa caasimadda ka dhacay banaanbaxyo iyo shirar kala duwan, laakiin dalabkaasi ma dhaqan gelin. Cali Aadan Muumin, Goobjoog, Muqdisho.